waxa meeshan ka dhacay waa musiibo aad u weyn oo aanan hadda ka hor anigu arag. waxaan leeyahay marka hore ummadda muslimiinta ah ee Soomaalida waxaan dhammaan baan u tacsiyeynaya gaar ahaan qoysaskii meeshan uu dad kaga dhintay. marka hore waxaan leeyahay dadka dhintay Rabbi ha u naxariisto, Ilaahay jannaha geeyo. inta dhaawacanna waxaan leeyahay Ilaahay ha caafiyo. inta oo qaraabadooda iyaguna la oo aan hadda nolol geeri lagu ogeyn Ilaahay waxaan su'aalanaynaa biasmaa'i wa sifaati iyagoo nolol fiican in la helo. dadka hantida ay kaga burburtay waxaan leeyahay Ilaahay hantidiina bedel degdeg ah Ilaahay ha idinka siiyo. inta markaan insha Allah ta'ala aan ka gudbo waxaan u mahad celinayaa dhibkaan markuu dhacay dadkii gurmaday ee Soomaalida la hoo qeyrkooda la hoo gurmaday oo dadku walaalahooda u soo gurmaday oo dhiigga u shubay oo waxa weeye dawo u keenay waxay heli karaan basiyay iyaguna waan u mahad celinaynaa. Jazakumullahu khayr baan leenahay. waxaan ugu horeeyaa Soomaalida marka la soo dhaafo dawladda Turkiga jazakumullahu khayr inay diyaarad iyo gurmad iyo dhakhaatiirba soo direen baan maqalnay. waxaan rajaynaynaa dawladaha kale oo muslimiinta inay ku daydaan oo iyaguna sidaas oo kale ay yeelaan. insha Allah ta'ala taas markaan ka gudbo hadee waxa meeshan ka dhacay waa wax oo wuxuushnimo ah, diin iyo aqli iyo wax aqliga saliimka iska dhaafay kan jiran hataa uu aqbali karo ma ahan. waxaan oo kale ragga samaynayo waxaan dhihi lahaa anigu taqriiban runtii muddo aad u dheer ka hor oo laga joogo 10 sano wax ku dhow baan niri waxaan oo kale nimayahow ka daaya dadka waan nagula dirareenoo way joojin waayeen. runtii hadda ka hor waxaan oo kale Shaamow bay ka dhaceen, Hargaha iyo Saamahay ka dhaceen, Masjid Bakaaraha ku yaalay ka dhaceen, meel kale ka dhaceen. maraaxil bay ahayd marna markay waxaan oo kale dhacaan anaga ma ahin baa la dhihi jiray oo aan maqalnay. laakiin markii dambe waxaa la arkay wixii markay kobceen kadib in la sheegto anaga yeelnay bal yiraahdaa la arkay. waxaan dhihi lahaa waxaan oo kale wuxuushnimo weeyaan Ilaahay diinkiisa iyo kitaab iyo sunna iyo aqli midna ma waafaqsana. dadka noocaas ah waxaan leeyahay waxaan oo kale sameeynaya tawba furan oo inay ka toobad keenaan oo waxaan iska dhaafaan ayaa u roon. haddii sidan janna lagu raadinayo jidkeedii kanu maaha. waxaan leeyahay dadka waxaan sameeyo waxaan leeyahay toobad keeno oo waxaan iska daaya. wixii shalay lagu kala dhintay way natiijo waa lagu keeni waayay, waxba waa lagu keeni waayay. waxa fiican in laga soo noqdo oo la toobad keeno oo waxaan iska dhaafaa roon. iyaguna saasaan leeyahay. waxaan ula jeedaa cidda aan sheegaya waa shabaab. meelaha waxaan ka maqlaayay in la leeyahay balaag watar baa waxaan ka dambaysay iyo taasna anigu shakhsiyan u malayn maayo oo kuwaas dhihi maayo maxaa yeelay balaag watar maada qaraxdana way keeni karaan, baabuur iyo lacag iyo waxna way keeni karaan, laakiin qof isqarxinaya nimanka ma keenin. marka dadka ka dambeeyo oo basamaadkooda iyo farahooda waxaan ay ku yaalaan waxaan leeyahay ka hara oo ka toobad keena. qof muslima dhiigiisa iyo intaanoo hantiya in la burburiyo iyo dadkii daraasiin iyo jumle in loo laayo adduunyo aakhira midna wax lagu gaari maayo. taas insha Allah ta'ala intaas ayaan ka dhahayaa biidin Allah ta'ala. dhalinyarada hawsha loo soo dirayo waxaan leeyahay qofka muslimka intuu nool yahay tawba u furan. intuu nool yahay qofka ma lam yuqarqir buu nabiga yiri ilaa naftu ay dhuunta soo gaarto qofka tawba furan. qof rabo inuu janno galo marka ugu dambaysayna boqolaal naf sahay u qaatay qofka masiirkiisu ma hagaagsana. waxaan leeyahay yaan been la idiin sheegin sidan oo kale in wax lagu dad la yeelo ajir iyo janno lagu heli maaye baraarugaan leeyahay. qofka sidan waxaan ku soo diray isaga ha yimaado, ilmihiisana ha soo diro. hadduu isagu iman waayo ilmihiisana soo diri waayey adna ilmadadow baa tahay, aabbaha iyo hooyadaaba waxaan ka naxaye. waxaan leeyahay adigu xataa haddaad waxba isku fali weysay waxaan leeyahay tawba furanoo ha laga soo laabto. intan ha laga soo laabtaan leeyahay waxba lagu gaari waayay ha laga soo laabto. wajazaakumullahu khayr.